الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبنا قلت waxaan ku dur istaagi doonaa dowladda Soomaaliya ee ka arrimaysa gobolka Banaadir ayaa soo saaray bayaan ah inay xariga u jartay dowladda Imaaraadka Carabta sidoo kale inay kala laabatay heshiisyadii ay ku joogeen dekedda Berbera, dekedda Boosaaso iyo dekedda Kismaayo. Su'aasha isweydiinta mudan waxa weeye saameyn ma ku leedahay dowladda ka arrimaysa gobolka Banaadir inay Imaaraad ka saarto Boosaaso, Berbera iyo Kismaayo. Waa dur istaagi doonaa qodobkaas. sidoo kale waxaan dul istaagi doonaa xasan sheekh maxamed waa xasan wabiir madaxweynaha gobolka Banaadir ayaa yiri waxaan tagayaa magaalada Laascaanood ee SSC Khaatumo iyo Somaliland oo u diyaar garowday inay dagaal ku qaado Laascaanood ayadana waa dul istaagi doonaa waana la iskarayn doonaa aan ku hormaro waayahay xasan sheekh maxamed ka xukuumada gobolka Banaadir ayaa soo saaray bayaan ah inay kala laabteen xiriirka iyo heshiisyadii hore loo galeen dowladda Imaaraadka Carabta waan ognahay inuu gobolka Banaadir madaxweynaha xukuumadda xasan sheekh maxamuud miisaaniyadiisa billahi bishii uu ku bixin jiray 12 milyan oo dollarka Mareykanka ah ayaa miisaaniyada Soomaaliya ee billaha ciidanka qalabka sida lagu ciidanka gobolka Banaadir ka howlgala iyo nawaaxiis lagu biiro ama mushaarka lagu siiyo ayay waxay ku bixin jirtay dowladda Imaaraadku 12 milyan waa inta miisaaniyada ku jirta inta maaha suuqa madow lagu kala cuno laakiin inta ku jirta miisaaniyada dawladda ayaa 12 milyan ahayd xasan wuxuu yiri waxaan xiriirka u jaray Imaaraadka waxaan dhinaca saaray Sacuudiga iyo Imaaraad oo isaya ayuu Sacuudiga raacay waya su'aasha isweydiinta badan baa waxay tahay xasan sida ay bayaan ku saareen oo ay dhaheen Berbera, Boosaaso iyo Kismaayo ayaanu heshiis kala laabanay ma ka saari karaa Boosaaso, Berbera iyo Kismaayo السؤال سودين مضى مدحويني كوري حسن وبير محمد عبد الله فرماتشي أهانا نن أرميها الدبدة دتك أنا لسقرياهي إنه كفيعنا صورتنا يا حيد كريه إنه سن باهي سنين دولة لها شيئا أو سن كقالن شرين أدي على كورو يهاي لعيا كقالن شرين عروض يناقهنا إبيل أو سن أورنشرين أيا إمارات أقبتي أفران ساعين وكجبحه مجال المقدس وطن كان كجور Soomaaliya waxaad ogtiin xeradii General Gordon oo ay deganayeen ciidamadii Imaaraadku hatta in la bililqaystay oo ay bililqaysteen ciidamo daraawiisha ama ciidamada xoog ay bililqaysteen iyo saraakiisha u shaqeynaysa Imaaraadka waxaad ogtiin inuu kala baxay baabuurtii qafuleyd kaliya inuu ka saartay hubku wixii adkaa uu haystay Imaaraad inuu markab kaga rartay waxaad ogtihiin inuu hubkii uu xamar ka soo raray u qaybiyay Berbera, Boosaaso iyo Kismaayo waxaad ogtihiin inuu Imaaraadku caadi u soo degay Boosaaso, Berbera iyo Kismaayo dhaqaalihii uu ku bixin jiray xamarna uu halka keenay taariikhda waxa laga bartaa 12 milyan ee xamar ku bixinayay Imaaraad ayaa hadda u soo wareegay Boosaaso, Berbera iyo Kismaayo ayaa qaybsanaya min 4 milyan والعكس فيعان أول واحد قاعدين شرين 3 مليون أو أمني جودة يحريها عيدا كي يوحى بي فيه هذا عندنا بتلان هان 3 مليون ما يحصل بيش نسين شري عيدا ماذا يوحى شغالها يو مقرنا سبيس كاس بي فوق عليه وعيدا مشاكل موجود دقيقة شري دقالك على المسكات دور لقلي وأنا هذا قمه علينا دولة إماراتكو وصفة عن نوكر بيستاجي هاتنا واحد نص السيادي إنه حسن لبيه 8 مليون وحسن سين شري in markay u yadhahay 4 milyan ilan annaga iyo Kismaayo iyo Berbera noqonayna moogta in markay u yadhahay 4 milyan halka ka soo xarootay xasan intii aan la rabnay hadda ayuu galay annaga tani waxay noo tahay najax siyaasadeed najax dhaqaale iyo najax cududba Imaaraadku waa dawlad marnaba annaga reer Puntland aan ka kaftamin kama kaftano waa wadnaha iyagu way Imaaraadku meesha doontu nooga timaada waa Dubai meeshana la kaga soo raro bariiska waa Dubai baasada waxay tahay Dubai doontaydu waxay ka timaada Dubai lacagtaydu waxay gashaa Dubai waxa oran karnaa Imaaraad annaga wuxuu nasiiyo ama nagu taakuleeyo waa wuxuu walaaltinimo iyo nagu caymiyo dhaqaalaha u soo xareyn wax nooga ceshay marka taas marnaba niyadaada ha gelin in Imaaraad lagu khasbi karo inuu ka baxo Boosaaso, Berbera iyo Kismaayo محمد عبد الله فرماتشو أو أم باهنين عرورتي سناجي سنة دبي الجوبيلين
ayaa ka saari waayay Boosaaso Berbera iyo Kismaayo bal wuxuu ka saaray magaalada Muqdisho xasan waxa uu xukumaa magaalada Muqdisho waa madaxweynaha gobolka Banaadir wuxuu xukumaa magaalada Muqdisho 12 milyan intaan ognahay oo miisaaniyad billaha ku jirta Soomaaliya ayaa hadda noo soo wareegtay annaga reer Puntland iyo Somaliland iyo Jubaland taasina waa najax siyaasadeed ama waxa la oran karaa najax dhaqaale oo noo hoosiyaaday marnaba wax ma xumaan xamarna wax saameeyna kuma laha Puntland Berbera iyo Kismaayo taa qodobkaas halka saan dhigay cadayna waxa ay kugu filan farmaajihii ka horeeyay midkan ee cayrin jiray qaramada midoobay muxuu ahaa cayrin jiray adiga la ku roon yahay muxuu ahaa safiirkooda cayrin jiray adiga la ku roon yahay reer galbeedka u dhigan jiro dhijay iga baxa wadanka kaasa ka saari waayay Imaaraad Boosaaso Berbera iyo Kismaayo hadda arkayseen Fahad Yaasiin oo nikinaya hadii maanta qadar la saar lahaa muxuu dhiiraa asoo haya bilmada Xasan Sheekh soo qoray arkay qadar maanta hadii la saar lahaa muxuu dhiiraa Saudi waxa laga qaato iyo intuu qabto qadar inta ay qabato Turki waxa xamar ka qabto intaas ayuu noo qabtaa annaga Imaaraadku kama kaftano waa wadnaha yagi way inta soo sheegaya bulshada reer Puntland reer Somaliland waa ogyihiin reer Jubaland waa ogyihiin mana aha wax saameyn ugu yeelanay qodobka agasan ku xiran qodobka la dul istaagay waxa weeye Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu yiri waxaan tagayaa Kismaayo waxaan tagayaa meesha Laascaano dowladda Somaliland waa diyaar garowday ciidamo aad u tiro badan ayay xuduudaha isku geysay sidoo kale waxa u timid khubaro hadii la ku rooyahay sirdoonka Muusada iyo sidoo kale hore waxa la sheegtay khubaro ayana xagga ciidamo cireed ah oo isticmaalaya drone diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayana sidaan xogahan hayo oo uga timid dowladda la yiraahdo Taiwan iyo Muusada oo Israa'iil Xasan waxa laga soo sheegay Khamiistan imaanaya ayuu xalay habeen hore ku yiri balse hadda markuu waxa maqlay waa baaqday baa soo dhow hadeer oo wuxuu bilaabay arbacada waxaan u socdaa meesha la yiraahdo Sacuudi baan u socdaa sabtida idin imaanaya sabtida markii la gaarana maalin kale uu sii sheegi doonaa oo Xasan mar hadduu maqlay diyaar garow iyo waxba jira wuxuu yiri madaxweynihii labaad oo Laascaano tagay waan noqon karaa laakiin ma laga yaabaa waa la taliyaashiisa markuu wareysanayay madaxweynihii koobaad ee ka soo nabad noqday inaan noqdo taasina su'aal isweydiin mudan weeye xag alle ku xiran tahay balse nafay ninku doona ku waa Somaliland waa diyaar garow aad u adag ciidamo ilaa 20 ku gaaraysa ayay ka horgeysay jiidaha geysay wilise wax dhaqdhaqaaq ma sameyn laakiin sida xogaha naga soo gaaraya waxay sheegtay inay duulimaad qaadayso awood leh Xasanna uu noqonayo madaxweynihii labaad ee Laascaano tagay laakiin uu soo noqonayn madaxweynihii koowaad ee Laascaano ka soo laabtay waa hadal aad xajmigiisu u weyn yahay ayna ka dambayso sida aan isleeyahay isku halayn fara badan waanu aragnaa halka wixii ka soo baxa waana daawanaynaa waana idin soo gudbi doonaa insha Allah waxaan anigu baaqi lahaa Ayuub ahaan dadka walaalaha ee isdhalay ee reer diyaarku SSC iyo reer Somaliland nabad baan ugu baaqi lahaa aniga Ayuuba aad baa idin salaamaya qubanaanta ku soo koobaya wa salaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh maalin wanaagsan